People have a right to support their families. Yes. People have a right to send food to their families. Yes. They have a right to make sure that their families are not starving. Yes. They have a right to make sure that their mothers and their fathers and their brothers and their sisters are safe. The Somali community in America is a good community. The Somali American community contributes to this society. Yes. The Somali community in America start businesses to feed themselves and to send money back home. It's wrong to close off the lifeline. Yes. It's wrong to close off the lifeline. Yes. It's not too much to ask. Yes. It's not too much to say, leave open the lifeline. Yes. It's not too much to say, open up the lifeline. Yes. I want to say we need organization. We got to hang together. We got to be persistent. We got to be determined. And let me tell you, eventually we got to open up a Somali-owned bank. The answer is open up a Somali-owned bank. We need to get in a position where we don't have to ask somebody to open up their bank. Yeah. Open up your own bank, but the Somali community has been trying to open up that bank, but we need a little more time. Yes. We need more time. Yes. So the Somali American community can do for itself. Yes. Just a little help, not a handout, just a hand. Yes. And I want to say that we're going to put the pressure on government. We're going to put pressure on the community. We're going to raise our voices. We're going to organize until we get simple justice. Yes. Thank you very much. Arrinta maanta meesha la isugu yimid waa baahi dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee gaajada dhibaatada haysata $150 ee loo dirayo in cod ahaan la isugu kaalmeeyo dadku ay ku noqdaan dad ku midooba arrimahan oo kale wada taabanaysa waxa arrinka loo marayaa in dadka walaalaha ka shaqeynaya lagu kaalmeeyo codkooda iyo waxa way juhdi loo geliyay si looga dacwoon lahaa arrintaas waxa way dhibaatada meesha magaalada Minneapolis ee Soomaalidu ay degan tahay dhibaatada Soomaaliya haysato dhan hal cod la isaga hormarin lahaa arrinta la isaga kaalmaysan lahaa waxay u muuqataa shacab fara badan inuu ka soo qayb galin maanta kulankan hadii kulan kale uu soo raaco maxaad ku baraarujin lahayd dadku inay sameeyaan waxaan ku baraarujin lahayd dadku inay sameeyaan inay ogaadaan tafaraaruqa kala taga inay u keenayso marka dambe waxa weeye in arrimihii diiniga ahaayo hatta qaraabada xiriirinteeda hatta ay go'ayso sida daraadeed inay ka shaqeeyaan say u midoobinaayeen dadku maanta meesha waxaan u nimid inaan walaalahanaga Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku dhibaataysan oo wadankan Mareykanka bangiyadiisu ay ku soo reeyeen cunaqabatayn inaan dawladda Mareykanka cabasho u gudbino arrintaas inayna ku xunnahay arrin noo qaranta inaysan ahayn dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya waxay ku nool yihiin inay tahay wax yarka $100 oo dadka walaalahooda ama qaraabadooda ay ka soo gaarsiiyaan dawladda inay ku noolaayeen arrintii ayada ay ku noolaayeen bangiyadu ay cunaqabatayn ku soo rogeen marka inaan cabasho u gudbino dawladda Mareykanka in cunaqabataynta laga qaado oo bangiyadu ay xawaaladaha la shaqeeyaan xiriirka kala dhaxeeya ay sii wadaan sababta sida maanta ameesha sidaas weeye insha Allah ilaahay xaqiisna waxaan ka rajaynaynaa in arrintaas noo hirgasho inta bangiyadu ay furayaan akoonada xawaaladaha ay ku lahaayeenna waa wadi doonaa insha Allah tacaala cabashadeena ilaa aan ka gaarayno goolka iyo danta aan leenahay hadii ilaahay raali ka noqdo maxaad ku baraarujinaysaa dadka shacabka ee Soomaalida ku nool ee arrintan dhamaantood wada saameyn doonto waxaan ku baraarujin lahaa ummadda Soomaaliyeed saqiira oo kabiira mid yar iyo mid weyn culimada aqoon-yahaniinta iyo dadka waxgaradka intaba inay u istaagaan arrintan oo arrintu aysan ahayn wax qaas ah xawaaladaha ay tahay wax ummadda Soomaaliyeed dhamaantood wada saameynaysa oo hadii xawaaladaha la xiro millions people dad aad u tiro badan ayaa gaajo u dhimanaya oo ku noolaa marka in loo istaago ilaa goolka iyo danta aan leenahay laga gaarayo oo ah in cunaqabataynta laga qaado inay u istaagaan ayaan ku baraarujin lahaa meel kasta ay joogaan insha Allah tacaala ay cabashada ka muujiyaan Soomaalinimada waxaan halkan insha Allah tacaala u taaganahay inaan cabirno inaan sheegno dhibaatada ka soo gaarayso dadka Soomaaliyeed
ku nool dalkii gudihiisii iyo halka kan iyo xeryaha qaxootiga iyo dadka waddankii gudihiisii joogo oo aan xamaaliga iyo xoogga waxa aan xamaalno oo aan shaqayna aan u diri jirnay oo carruurteennii oo waalidkeennii waayeelka ahaa oo reeraheennii iyo qaraabadeennii aan u diri jirnay oo aan u sacrifice garayn jirnay inaan haysan maanta meel aan marsiino iyo meel aan ku gaarsiino dadka waxaan u safar garaynayno waa dad yar darteed ama qof qaanuunka jibiye daraaddeed oo lacag khalada diray ama lacag diray ayaan u safar garaynaynaa maanta intaasoo milyan oo muslimiina oo Soomaaliyeed waxaan ognahay lacagaha la diraayo waa qof soo xamaalay oo warshad ka soo shaqeeyay oo taxkii qaar dawladda ka qaadatay federaalka oo qaar state ka qaatay intii u soo hartay oo ilmihiisa u gaarsiin lahaa iyo waalidkiis intii uu gaarsiin lahaa in la yiraahdo ma gaarsiin kartid oo ay ku dhintaan markaa ay u dhintaan ay gaajo u dhintaan Soomaaliya waxay aad iyo aad ku tiirsan tahay dadka bannaanka ka xamaalaya oo soo qaxay dadka dawladda Mareykanka oo samafal u samayso dadkii soo qaaday halka keentay si ay intii kale u safegareeyaan safegareyntii dadkii ay safegareyn ma safegareyn kartid haddii la yiraahdo macnaheedu waa dhimasho iyo nolol waaye waa ummadda inay baaba'do. We are here to express our feeling that we are all here standing in this cold weather, that our 8 million people, we cannot send them any money, we cannot send them the money that we are earning for our work for this country. We are working hard. All the women and men and youth are working hard, and they are paying the tax, part of the tax for the federal government, for the state. Yes. The rest of our money. The rest of our money. Yes. We cannot send it to our families back home, our children, our brothers, our sisters. Yes. We cannot send it. Keep the money in your pocket. What does that mean? Please explain for the federal government. We are suffering for that. We are taxpayers. We are standing here that 8 million are starving because of nobody will give them money. If the children die for that sake, it is the responsibility of the U.S. government that all these people are citizens of USA. waxay idin sheegaynaa arrimo muhiim ah intii la qabtay aamihii la soo dhaafay xawaaladaha lagu dhawaaqay la xiro ilaa maanta ugu dambeysay waxaa socday kulanada isdaba joog ah rajaduna ma xumayaan la isdigan niyadii la yeeshay ka jabin laakiin waxaa go'aan ay qaateen buluugta inay xiraan maantana ugu dambeysay maxaa inoo yaala markii inala habboon inaan qabanayaan rabaa inaan kulligeen aan maqalay dhageysta please waddankan dadku waxay leeyihiin awood dadka waddankan waxay leeyihiin awood we are the people we the people dadka inaga way adinka dadkaad ka mid tihiin Mareykan baan nahay awoodna waan leenahay waxaan awood u leenahay inaan shilinkeena u isticmaalno ciddii nala shaqaynayso ciddii nala shaqaynayna ka joojino waxaan awood u leenahay bankiga inoo ogolaado inuu noo furo account inaan la shaqayno account aan ka furano kuwa la diray hooyaday oo dhibaataysan wax la gaarsiiyana aan ka xirnaa account-yada marka fadlan action waxaan u baahanahay ma aha hadal wallahi waxaan u baahanahay action inaan qaadno actionka ugu horeeya muxuu yahay baris wax oo waaga marka ku baryaa hadday banuugtu furan yihiin la socda waxaa socda campaign weyn oo ay wadaan qolooyin la dhaho Occupy Minnesota la socota wajiraan unionada dagaal weyn bay wadaan inaad ka qayb qaadataan financial institutionska dagaalada lagula jiro inay si cadaalad ugu shaqeeyaan dadweynaha Mareykanka gabi ahaan ayagoo kala kasta leh oo diin kasta leh oo ethnic kasta leh luqad kasta ku hadla dad muslimiin nahay waxaan xaq u leenahay muslimiin waddankan xaq kasta qof kasta u leeyahay qulaha waxaan mahad ilaahay waddankan constitutionkiisa inuu ku difaacayo diyaar ku yahay la hadaan isticmaali kuma difaacay marka fadlan action ay sheeganaan sameeyna muhiim ah number 2 inaan wacno kuwa la doortayaasha oo laga doorto gobolkeena
waxaan aad noola shaqeeyay oo loo baahan inaan credit aan siino ninka la yidhahdo congressman halka ka hadlaya hadda ninka muslim congressman Keith Ellison aad buu noola shaqeeyay oo mahad celin oo baahna horta marka hore aniga waxaan ahay arday beledkan wax ka barta marka iskuulkaygiina waa drop gareeyay sababtoo ah waxa uu drop gareeyay dadkaas masaakiinta ee dhibaataysan ee walaalahay ah ee familkayga ah ee qaraabadeyda ah inaan quudiyo ay ku shaqeeyo shaqadii aan u shaqeynayay oo iskuulka dartood aan uga haray ayaa maanta waxa dhacday in la dhahay lacag looma diri karo marka waa waxaan macquul ahayn lana qaadan karin arrintaasna waa wax macnaha bini'aadanimada ka soo horjeedo oo aad looga xumaado arrintaas ayaana maanta muujinayaa sida uga xumahay annaga meesha waxa uu maanta isugu soo baxnay in dawladda u sheegayda inay meeshaan dhibaato kale iska ooleen kaliya wax u baahan ay tahay waalidkeena walaalaheena iyo qaraabadeen dadka masaakiinta ay wax u dirno wartaas dadka isugu soo baxay maanta shaqo meelan aadin iskuul meelan aadin waxa meesha isugu imaanay Soomaaliya ku isugu imaadeen kaliya waxa way baahida rabitaan dadkeena inaan lacag u dirno inaan isugu soo baxnay meesha maanta ilaa ay kamana tageen waaga noogu bariyaa ilaa caawda waa joogina inta meesha dawladda ka imaanayda ogaanayda codkeena u gaarsiinayna